maanta waxay ahayd maalinta saddexaad ee ololaha baritanka doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada 11 bisha May ka qabsoomi doonta guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. xisbiga mucaaradka wadani ayaa maanta waxa uu ahayd maalinta koobaad ee baritanka ololaha doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada lagu soo dooran doono 11 bisha May oo maalmo kooban ay naga xigaan. magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa murashaxiinta kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani uga sharaxan xilka xildhibaanimo ee golaha deegaanka iyo sidoo kale golaha wakiilada ayaa maanta waxay fagaaraha weyn ee khayriyada magaalada Boorame ay ku soo bandhigeen cududa taageero ay ku leeyihiin deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal. murashaxiinta ayaa saaka waxa subaxii hore laga soo kala galbiyay xaafadaha kala duwan ay kaga nool yihiin magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. intaasi kadibna waxay isku soo biyashooteen halkan oo khayriyada weyn ee magaalada laguna soo bandhigay cududa taageero xisbiga mucaaradka wadani uu ku leeyahay guud ahaanba deegaanada gobolka Awdal. waxaana murashaxiinta kala duwan ee soo bandhigaysa cududa taageero ay ku leeyihiin deegaanada gobolka Awdal iyo siday bulshada ugu hanweyn yihiin in 11 bisha May la doorto. waxaa kala soo qayb galay munaasabada dabaaldega saraakiil sare oo xisbiga mucaaradka wadani ka tirsan isla markaana uu kamid ahaa murashax madaxweyne xigeenka xisbiga mucaaradka wadani ambassador Maxamed Calawi Cabdi. barbilaba munaasabada waxaa hadalka ibafuray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Awdal dhammaan dadweynaha kala isku soo baxay ee taageerayaasha xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka waan hambalyeynaa sida u yimaadeen. waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa dadweynaha wadani ee soo baxay. waxaynu ognahay inaynu codka qaadan doono. ballanteenu waa maalinta codka. ballanteenu waa maxay waa maalinta codka. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. intaasi kadibna waxaa madasha hadalka la wareegay qaar ka mid ah murashaxiinta kala duwan ee u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxay halkaasi kala hadlayeen taageerayaashoodii kala duwan ee goobta ku sugnaa. garashadiina ku jirtaa caqligiina ku jirtaa reer Awdal oo maanta waana iska xoreysaan kulmiye weligii ku guulaysan maayo kulmiye gobolka Awdal. taariikhda dhici mayso ninkii dhaga qaba la hadlaya ninkii dhaga qaba taariikhda Soomaaliland ka dhici mayso in gobolka Awdal uu kulmiye ku guulaysto weliga dhici mayso. ana idin sheegaya maanta taa markhaatina way leedahay fagaarana way joognaa. waxaan ku sheegayaa taa waxaan ogahay weeyi oo inta gobolka Awdal baan ogay qadiyada gobolka Awdal baan ogay garashada gobolka Awdal baan ogay. dhammaan xildhibaanada halkan fadhiya waa xisbiga wadani. waxaan u baahanahay soo saaro dhammaantay waxa weeye waxaanu ilaahay idankiisa waxaanu hubnaa inaynu guulaysanayno anigii asxaabteeda kaliba dhammaantay inaynu guulaysan doono. waa maalin aanu isleenahay taariikhda inaanu bedelno isbedel dhalinyarada iyo haweenka iyo inta caqliga ay hogaaminayso ayaanu hormood u nahay. xisbiga wadani waa xisbiga rajada sokeeye wali waxay ku jiraan kala qaybintii iyo kala qoqobkii iyo Soomaaliland loo kala abtiriyo. dadka noocaasa ay xisbiga noocaasi inagama gayaan halkan xataa inay hal kursi ka helaan. waxay noo ballana inaanay xisbigaasi iyo xildhibaanada soo socda maanta ee xildhibaanada golaha wakiilada iyo xildhibaanada deegaan weeye waxa waajib baan saaran fulin baatihiin. ummadaasi waxay nii dooranaysaa cadceedda nii joogta waxa weeyaan inaad wax ka bedeshaan degmada Boorama oo qurux iyo sharaf kale ku soo celisaan ood ummadda u adeegtaan ood shaqaalo lagu seexdo aad u noqotaan. ummadda waxay niigu soo baxayaan waa inaad shaqaalo ummadda aad ku seexata noqotaan. maanta inamadaas oo aan u arko inamadii ugu aqoonta badnaa waa inamo wada dhallinyara inamo wada aqoon-yahan ah oo aan filayo runtii inay gobolkan matali doonaan golo baarlamaan iyo ku deegaanba. waxaan idinku dardaarayaa maanta cabashadiinna waxaad kaga jawaabi kartaan inaanu qof kulmiyi ka soo bixin gobolkan. waar sidaan ba isku ognahay guntiga gabagabadii waxaa hadalka madasha soo afmeeray murashax madaxweyne xigeenka xisbiga mucaaradka wadani waxaana khudbad dheer u jeediyay taageerayaashii kala duwan ee ku sugnaa khayriyada magaalada Boorama. aan leenahay waardo taqaanaan xildhibaanada iyo deegaanada inta wakiilada iyo deegaanka cid u sharaxan gobol kasta waa taqaanaan kala doorta cidda waxtaraysa dalka doorta deegaanka tegaya iyo baarlamaanka sii socda midna wax ka sheegi mayno. waxay qaban karayeenna way qabteen waxay dhaliilayhiinna way la tageen. kuwa soo socdaan rajaynaynaa inay wax taraan dalka oo ay wax ka bedelaan
komishanka waxaan leeyahay waar idinkaa qalinka haya doorashada idinkaa u xil saaran idinkaa wixii ka qaldamana idinkaa leh wixii ka saxaana iyagaane taariikhda idiin gelaysaa if iyo aakhiraba waa laydinku xisaabinayaa xildhibaannadaa tartamaya caddaalad inaad u samaysaanba idinka rabaan waxaan leenahay ummadda Soomaalilandna meel kastay joogaan taageerayaasha xisbiga waxaan leenahay diyaargarooba inaynu si xalaala ku dooranno musharaxiinta xisbigu soo sharaxay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maanta bishu waa 25 maalinteeda doorashadaasi way dhammaatay waxaan rajaynaynaa in ilaahay inaga farxiyo oo aan ku faraxno xildhibaanada gobol kastaba waddani uga soo baxaya musharaxiinta golaha iyo wakiilada deegaankaba inaynu helno. waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga ee Ariel TV Boorama.